عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا الله سعطان دالك وحوكو جرا دقال آد ما ركتا وقلص ولولا جرو خوارجتا كسو دوشي دالك دينتا يا دادك هولغالاداس oo khawaarijta lagula dagaalamayo waxay ku socdaan si aad u qiimo badan oo maaragta aad u wanaagsan ayay ku socdaan sidaad la socotaanna waxa maaragta guuli waaweyn laga gaaray muddadii 6 bilood ahayd dagaalku uu socday guuli waaweyn ayaa laga gaaray gobolada dalka gaar ahaan Hirshabeelle iyo galbeed maaragta galmudug waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago war farxad leh oo shacabka Soomaaliyeed muhiimad gaar ah u leh howlgalkana micno badan u sameeynayo kaasoo ah in ay maaragta ciidamadeeni ku maqnaa tababarada dalka Eritrea ku maqnaa qaybtii ugu horeysay maanta ay soo degeen maalmaha soo socdana inta hartay ay maaragta soo dhameystirmi doonaan iyaga oo maaragta qayb ka noqon doono dagaalada lagula jiro khawaarijta saad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed muddo 2 jeer ayuu Eritrea ku laabtay isaga oo maaragta dadaalo gaar ah ku bixinayo in ciidamadaasi ay dalka dib ugu soo laabtaan kadib markay tababarkooda dhameystirtaan kana qayb qaataan howlgallada socda ay ka qayb qaataan alxamdulillah maanta ayay maaragta noo suuro gashay qaybtii ugu horeysay inay dalku ku soo degto inta hartayna ay imaan doonto waxay dhabarjab ku tahay khawaarijta iyo cid walba oo nabadda maaragta iyo maaragta dalka guud ahaan dib ku hayso ayay maaragta dhabarjab ku tahay dawladda guud ahaan waxay sii wadi doontaa hadii Ilaahay yiraahdo howlgalladaasi waxay kaloo maaragta sii wadi doontaa horumarinta iyo tayeynta iyo tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maaragta xaqiiqdii kaalin mug leh maaragta ka geystay la dagaalanka khawaarijta hadii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka dhow waxay maaragta Soomaaliya ay ku noolaan doontaa iyadoo aan khawaarij ku nooleen ciidamo tayeysan oo tababaran oo maaragta professional ahna ay maaragta ay lahaan doontaa hadii Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin salaamullaahi calaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh.